السلام عليكم. شرفتي شربدوي فيديو كان دعوة أنا يا عبد الحلو بقى هذا المي أرنتي بيكي هي قراحية ماشي كالعية سوما دول كنا سومالي قراحية دول كالعية وحاس فيديو كان دعوة المقدر ريال شير قراية كومنت كسو ديبا بيكي وشير هان كوين هذه إنه نعن عليه يوحى أنا جن هذا بطورنا إذن ضد بدن بهرت فيديو يصدر فيديو والبدن بالله يصدره أدب ما سنتين فيديو وحرب فيديو يا شخص صدرنا هالمر إن مالن أسمعه ضد فيديو يصدره إن فيديو قسمه أيقو أنا عن رياكشن يحس كبحي بانسمين دونا إن شاء الله dad badan baa fiidiyool badan baa la soo diray meel kasta laga soo diray alxamdulillaah aad baa u mahadsantiin magaca ina naafi shargareeya meel kasta gaarsiiya ilmaha reyaalo meel kasta gaarsiiya ina naafi tv shargareeya comment ka soo dhiiba subscribe dhaha si faafiya ilmaha reyaalo intaasayna weydiisa waxa weeye ma weydiisana intaasayna weydiisa khiyaarta sharafta mudan sharbadu weyn waa ka dhaafay waxyaalo badan baa ka dhaafay horta koob anoo qaad afkay inaan wax soo duubo oo dambe ma jirto dadkayga waxaan rabaa inaan halkan tacsi uga diro ummadii ku dhimatay ku geeriyootay qaraxii ka dhacay muqdisho dad badan baa ku dhintay dad badan baa qacan dhiiglayaal dad badan bay dileen dad badan bay meesha marka anigu waxaan rabaa laba erey iyo saddex erey inaan noqdo meeshaan ilma adeerayaal al-shabaab baa nolol every day waxa la al-shabaab baa waxaan qaxiyay al-shabaab baa saayala waa been al-shabaab jirto ma jirto al-shabaab dambe ma jirto al-shabaab waa magac anaga nololkuma weelinayo dad wixii nabadda ka soo horjeeda oo dhan wixii nabad iyo nolol ka soo horjeeda oo dhan baa ka dambeeya qarax ka dhaca muqdisho maalin kasta iyo dhiig maalin kasta daadanay iyo hooyooyinka ilmahooda ku waayay iyo dhalinyarada meesha ku baaba'aysa waxaasoo dhan waxaa ka dambeeya dad nabaddiid ah nabad rabin marka in la dhaho al-shabaab baa ka dambeysay al-shabaab baa saan samaysay wax al-shabaab la yiraahdo oo jira baa iska yar waxa qaraxyada dhaca oo dhan waxay ka yimaadaan dadka wixii dawladda diidan oo dhan anu ma dhahay hebel way yaqaanaan wixii dawladda diidan oo dhan baa waxaa ka dambeeya qaraxyadan iyo dilkan maalin kasta ka dhacay. Another thing waxaan rabaa inaan ka hadlo BK yaa lagu mashquulay BK waa jiir haan ku weynaada yaa lagu mashquulay maskaxdiisu waa maskax iska yar sida wax u yiraahdo hadda waxaa laga yaabaa Somaliland oo loo sii jeedin oo qaraxyo iyo waxba loo hadda now ilbaa lagu hayaa odayga marka waxaan sir umaleynay inuu hargeysiyo Soomaaliland ku noqonayo midna maadaama hadalka soo tuuray marka hadalka asaga maxay tahay aqligiisa bal arag aqliga BK bal arag nimayo iska daayeen ilaa horta intuu soo fariistay buba apologize bixiyay marka Soomaalida ku weerarayay marka waa iska fanaana wuxuu rabaa iska dhaho waa iska dhaafay inaan mar dambe ka qabsado ciidsado waa iska dhaafay because jiir haan ku weynaaday wuxuu ku sheegayaa iska runta markii loo hadlo BK yaa lagu fogaan BK showgiisa hala tago hala tuso Soomaalida inuu dad gobay yihiin dad baa leh ha teginina war taga gobnimada anu waa u dhalanay taga meesha marka labadaas arrimood baan weynaan ka hadlo cabdi
محمد تورة دي أرنتي بيكي iyo qarax iyo de aan leenahay ummadii mesh ilaahay hora nimankii Soomaalida ha mesh ku baabay ayaga hadan duubaya ha nimankii mesh war maleeshada si fiican horta marka waxaan hadlayaa nimanka la yiraahdo al-shabaab waxaan leeyahay niman dhibaatadina way badatay al-shabaab waxaa tiini al-shabaab waddanka ku dhunroontaaniyo al-shabaab ma jiraan waxaa qarxinayeen marka waa dadka nabadda ka soo horjeeda dadka nabadda ka soo horjeeda marka inay Soomaali qarxiyaan maahe war arrin waxaan ugu maqaan al-shabaab baan in maqaana dadka aad xiliyeysaan nololba joojiga ma al-shabaab ma jirto al-shabaab waxa qarxinaya al-shabaab way al-shabaab waa magac qaraabto lagu qaraabto waxa ku qaraabanaya laftigooda ku al-shabaab ku qaraabanaya laftigoodu qaraxa Soomaalida ka joojiya ma warsanaysan mise adigu ma al-shabaab laftigaaga taarsantahay miyaadu ma jiraan fiiriya meel ka soo taara joogtaan shaqada Soomaaliya Soomaali waa in salaamaya wadan koowaad tanabad waxaan leeyahay waan ka xumahay muqdisho wixii ka dhacay qaraxi ka dhacay intii ku dhimatana ilaahay ha u naxariisto intii wax samaysay oo qarxisayna ilaahay cadaabta ha geeyo ana ku fogeeyo tanabad nimanka wax qarxinayo iyo dadka walaalahiin oo Soomaalida oo danahooda wata oo aan dhibaatada wadin sabab dagaal ku jira qaraxa ka dhaaf ديجي ولا كعي ديجي ولا كعي اكيد dad baa marka waxa jirta soo kacno boqol baa dhimatay ma dhameystaa ma horan karaa isaga ma lagu jiro marka nimayo dad baa ka xun waxa sameynaysan iyo dad ku faraxsan baa dadka ku faraxsan in Soomaaliya Muqdisho shacabkeeda maalin walba laayo oo ku farxaya waxa kamida ninka la yiraahdo Maxamed BK number 1 oo isaga ashaabul inuu soo kadamay xitaa laga yaabo oo waliba qof Soomaaliya oo dhimanaya buuxu ruwaayad intuu yimaado wuxuu ku leeyahay Muqdisho wala qalay Soomaaliya saas dhaha markaas loo saacabinaya dadka Soomaaliya meesan damir lahayn meesan waxa kan aysan arkin marka nimanka al-shabaab kuwa sheeganayo wadankuna qarax ka daaya kuwa ku faraxsanoona iyo Soomaali waa Soomaali adduunka Soomaali buu inoo yaqaan inaan dhimashadeena iyo xumaanteena inaan isku farxano ma kanimay waxa walaga xumay mid kale ta Maxamed Bikina Faringooni aan ku diraya taradna ma nacnacdaada iyo xaaga wax yar waqti yar ba ku haray waa soo baranaya hadaba ugu caalamkuna waa kana noo kala kaxay